halkaas isugu nimid inaan shir jiraad ku qabanno shirkaas ku saabsan sugidda amniga magaalada Boosaaso shalay iyo xalay waxa la qaaday operation magaalada lagu sugayo amnigeeda waxa la soo qabtay dadkan saakay aragteen oo ilaa xalay la kala guraayo la baarayay inna hadda la sii daayay intii kalena wali baaristooda socoto iyo isku xirka iyo wada shaqaynta hay'adaha amniga shirkii shalay aan idin sheegnay oo aan ku jiray hordhac ahaa go'aankii ka soo baxay qaabkii loo wada shaqayn lahaa oo ciidamada amnigu uga qayb qaadan lahaayeen sugidda amniga magaalada Boosaaso qodobka kaleeto waxa weeye saaxiibada halkaan fadhiya oo muwaadiniin Soomaaliyeed oo iyagana aad u jeedaan Mukhtaar Cabdinuur waa ninka dhexda ku jira Axmed Gurey baa la yiraahdaa waa taliyaha aaga waxa horay u ahaa Calmadow buurta Calmadow haddana in muddo kullu naga gacanta ku haynay fikirka qofku waxa uu aaminsanaan karaa laakiin haddana haddii uu fikirkiisii aaminanta hadda uu isaga insha Allah haddii ilaahay fikirkiisa ka hadli doona ninka kaleeto waxa la yiraahdaa Guuleed Bashiir isaguna wuxuu ahaa nin ka tirsan ururkaas buurta Calmadow ku jira madaxdiisu ka mid ahaa ninka saddexaad Cabdiwaaxid Cali Jamaadiid abwaan Soomaaliyeed aanu malaynayo in gabayadiisa iyo wax dhageysateen waxaan haynaa inuu yahay taageere ururka shabaab sababtoo gabayga marka qofku tiriyo oo wax ku cayimo oo ummadda tuso wasaan anagu haysano waxaan ku tuunsanahay ama aanu haynaa taageere ururka shabaab inuu u yahay mid taageera gubaabiya qofka gubaabiya iyo qofka baalkeeya kulay waxay kala leeyihiin heerar bay kala leeyihiin laakiin in abwaan Soomaaliyeed oo afkiisa ama codkiisa ku cabiraya fikrada uu ka aaminsan yahay ururka shabaab ummadda Soomaaliyeedna u sheegay saddexda qodob baan isu keenyeeray wax qabadkii magaalada tan dib ugu noqdo kulay indhiina ku aragteen waana wadeena hadii ilaahadno waana sugid amni bulshada reer Puntland ama deegaanka hadda aan joogno oo Boosaaso waxaan u sheegaynaa in ay tahay arrintan sugidda amniga magaalada bariyahan waxa la yiraahdaa meelhabla bam lagu tuuray meelhabla xabad laga soo tuuray arrimahaas iyaga inay dhamaadaan magaalada Boosaasana aan gacan adag ku qabanno ayaan ku tala jiraa hadii ilaahadmo wax qabadkii la qabtana waa mid ka hadda aragteen ciidanka kulay ciidamo waa joogan magaalada ku filan hogaamintoodii isku xirkoodiina amar baan ka soo saaray iyagana insha Allah waxaan jecelahay in si caadi oo shaqeeyaan bar hogaamin yeeshaan hal meel laga wada maamulo hal meel laga xukumo wixii ay soo qabtaan oo shaqaana hal meel la isugu keeno shaqada sida haddaba socota ama haddaba jirta aniga ciidanka meesha jooga kulli madax waa anigana barta isku xirka jooga wada shaqeynta la shaqeynayo waxa la shaqeynayaa qaybta gobolka Bari sababtoo ah shaqada iyaga leh waa shaqadoodii qaybtaas kale laakiin maadaama aniga taliyihii ahay ciidanka wixii awaamiira iyo wixii tala bixina aniga bixin doona hadii ilaahay go'aanka gaarista wixii la soo qabto iyo wixii baalkeena aniga barta hogaaminta u fadhiya waxaan rabaa inaan la isku khaldamin idaacadaha iyo website-yada waxbay qoraan qofku markuu muwaadin yahay oo dalkiisa joogo waxa fiican inuu xaqiiqada ka tagin waxaa jira website-do ama telefishinno qora wax lid ku ah Puntland iyaga waa uga digeena qayb kamidna hadda arki doonaa hadii ilaahadmo ama santiin way taliib waxaad ka warantaa dad ragana soo bandhigtay xilli ma la qabtay maxaa loo qabtay iyaga waraysan doontaan hadii ilaahadmo iyagana idin sheegi doona xilliga soo qabtay waxa ka su'aal jawaab lama hawlgalku waa soconaya inta doonana soconaya
دي لهاد أسألك بسيط الدين هذه بالمعصية. هذا الكاغا سيدا كبهاني واحد تريدقني واحد كنت سنايا. على إنك ميس كنت سنايا حركة الشرط. هذا مدة عنك كوهيني. هاي حاسس كبدي. يجا شيء قدونا أفكارته وحين مركو رأي مسنين هدا وحيا مسنين. يجا رواينا ورشتي. dad baa la soo qabtay hawlgallada sameeyeen bal dadka soo qabateen ka waran tirahan intee gaarayaan lagu bixinaysa dadka soo qabanay dhowr boqol bay ahaayeen ilaa 280 marmarinaya waxana baaris bay ku jiraan waxana waa sii deynaysa wixii la sii daayay waa aragtay marmarinaya waa taatay adiga ma xasan soo qabashada xarakada shabaab ka tirsanaa markii ugu horeysay soo bandhigista dawladda ma markii ugu horeysay رجل دينا عدولة مركب هذا قالوا جوجو ما هين إلا هنجيب المجرى كريم بس كحد دينا عارفة دكتور مجرى كريم سيدا إنه سوكر دينا عدول بيت أحمد قولي وورثان إنسان تليها ورثان إنسان تليها إلى مدوها ما أنت نواك هالك فردية كيسا ورثان إنسان كل واحد لوج يستوي قال إنك هذا كابوح إنه قطع سيدا أربعين تروح يفهم كريان إنه حسب بدلين بقى كذا ما كاسو حولت هذا الله فسر كريان إنه معقول هاي سيدا اللوج هذا لولا أيته إن هيك قيمة من الشباب نقدر إنه كم نظام وسراكير أي نظام تام حولت هذا إنه يرد الدنيا كبير دون وعي مدام يقول فكر هذه بدلين وانكاس ولما أنا قالك واحد ربع لما كان إنه هاين كتر صناعين أوركلا الشباب قاطون لما إنه ماشي فريقه هاين مرح هذا يكون عند دولته كتيران رأي جوده يفكر كي قبان يقعد يقول كان هذا هنا ورشتان لكن وان كجالس وحاسس كان الدولة ترى هذا سؤال ترى فيديو الشباب رجل هذين دور جرو هذا حفظ وصل بالكامل سياسة جرتها وحاجة جرتها أنت الشباب اللي حضنا الله في الصحة يوم بحوها شال يساك الرواج سو كذا بالله في الصحة مركي يجوا تنجيد الله سوق بتوكله حاب بشدو شيء صدق النوع عنه قراءة ومركو راس حفظ وصل كان تجي بالله في الصحة ارتقفك دنبيله وحلالون كلام مركي محكمة اللي جيو محكمة قاعدس أنت كهرة سواء إلى السنة مركي محكمة اللي جيو محكمة مركي اللي جيو ومحكمة أقرت إنه دنبيله هاي مركز سقف كل قاعدين كرا أنت هرب بارس كجرا وإلى السنة وعجلة ضد أنت مركو هرب لأيديو هذا محكمة أما حيران أنتو وأنفع ويا بارس تدي كبعدنا لو عليه حرية دودي